بسم الله الرحمن الرحيم ماستر دون runtii aad baad mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo codka caasimada gobolka Banaadir runtii waa saas sheegtay maantay oo ahayd maalin Axada 1 Agoosto waxaa dib u furmay Sanad Dugsiyeedkii 2021-2022 runtii Agaasinka Waxbarashada Gobolka Banaadirna sida dadka qaar ay og yihiin umada Soomaaliyeed ama gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Banaadirna alla wadaagina in Agaasinka Waxbarashada Gobolka Banaadir uu yahay wakiilka ugu horeeya ee waxbarashada gobolka Banaadir waxaana loo igmaday hubinta muwaadiniinta heer gobol inay si fudud u helaan adeegyo waxbarasho oo loo dhan yahay lana awoodi karo taas macnaheedu ay tahay in agaasinku uu markasta uu diyaar u yahay oo ka shaqeeyo waxbarashada gobolka Banaadir ayadoo maanta ay ku beegneed furitaankii Sanad Dugsiyeedka Agaasinka Waxbarashada Gobolka Banaadirna waxa uu hambalyeynaya guud ahaan Bahda Waxbarashada Dalka sida maamulayaasha dugsiyada macallimiinta waalidiinta iyo ardayda munaasabada furitaanka dugsiyada ee Sanad Dugsiyeedkan agaasinku wuxuu ammaan iyo bogaadin halkan ugu gudbiyaa guud ahaan hawlwadeenada waxbarashada gobolka Banaadir si ay ugu howlan yihiin horumarinta waxbarashada iyadoo oo la og yahayna duruufaha adag iyo ay ku shaqeeyaan agaasinku wuxuu u rajeynayaa guul sanadkii horena waxay ahayd sanad runtii aad u adag oo COVID-19 uu jiray sanadkan runtii aan rajeynayno in uu sanadkii hore ka duwanaado dhammaan tayada macallimiinta iyo maxaa la oran jiray ardada iyo dhammaan waxbarashadana inay wax badan iska bedeli doonaan madaxa dugsiyada gobolka Banaadir mudane Yaxye Ilyaas qorshaha ku aadan sanad dugsiyeedka cusub 2021-2022 ee Agaasinka Waxbarashada Gobolka Banaadir sanadkan muxuu yahay runtii qorshayaashu lama soo koobi karo oo runtii markii la yiraahdo waxbarashada laga hadlaana waa basic measure aaska ummad markii la rabo in laga dilana ay tahay gobolkana gaar ahaan Agaasinka Waxbarashada runtii ay u degsan yihiin qorshayaal badan haddii hadda aan tusaalahan ka soo qaado Sanad Dugsiyeedkan oo furmayo Agaasinka Waxbarashada Gobolka wuxuu diyaariyay wax loo yaqaano scheme of ama qorshaha buugaagta dugsiyada manhajka gobolka Banaadir taas oo ugu talagalay in buugaagta dugsiyada oo macallimiinta ay dhigayaan oo manhajka qaranka ah in ujeedooyinkii loo baahnaa uu la gaaro markii sanadku uu dhamaado sababtan waxay tahay in macallinka dhigaya maadada buuga waajibaadka uu saaran yahay uu yahay macallinka inuu buugaas dhameeyo ardaygana sidii loogu talagalay uu gaasiyo scheme focus dejintiisa waxay soo bilaabatay bishii hore 27keeda iyadoo macallimiin khubara oo 40 macallimiin ay isugu jiraan macallimiinta wax ka dhigta heerarka kala duwan waxbarashada gobolka Banaadir aday aan la qaybta dugsiga hoose dugsiga dhexe sare ilaa iyo heer jaamacad ayna diyaariyeen taas macnaheedu tahay in maado kasta oo ka tirsan maadooyinka manhajka qarankaana la diyaariyo saan ognahay sanadkii wuxuu ka kooban yahay 365 maalmood oo loogu talagalay in ardayda Soomaaliyeed ay wax ku bartaan markii laga reebo bisha June iyo July kadibna fasaxyaa soo gali doono laakiin daraasadu waxay noqonaysaa oo lagu jaangooyay 257 maalin in ay noqoto maalmaha waxbarashada dugsiga ay furmato 1 Agoosto Agoosto markay furmatana manhajka qaranka maadada biology chemistry ama xisaabta maadooyinkan science-kana wiilka ugu horeeya maxaa cashir la qaadana oo macallinka looga baahan yahay in agaasinku uu already diyaariyay macallimiintana loo diyaariyay inkastoo ay ahayd shaqo laga rabo macallinka haddana agaasinka uu diyaariyay laguna base gareeyay inta 36 isbuuc oo ka soo dhaxbaxaysa 257 maalin oo loogu talagalay xiriga daraasada ay soconayso taasoo haddii laba loo qaybiyo ay noqonayso 18 week ama 18 isbuuc oo qaybta hore ah oo 17 isbuuc kamid ah ay tahay maalin ama isbuucyo daraasa isbuuc 18 ay tahay isbuuca revisionka halka isbuucaasna uu ku soo aaday December isbuuca
ama bisha 12 isbuuciisa ugu horeeyo halkaas 12keedana uu ku bilaaban doono imtixaanka midtermka 15 uu ku dhamaan doono 16 waxaa la gali doonaa fasaxa oo dhexe ee midtermka waxaana dib loo soo laabanaa 1 January oo sanadka 2022 ah taa oo eedana ku beesgaysan scheme fog ama qorshaha ama casharada baxayana ee ku beesgaysan in buuga manhajka January haddii qaybta quality assurance ama kormeerka agaasinka waxbarashada oo damcana in school Sanad Dugsiyeedkan ama 2022 January hadduu dugsiga ugu tago taa oo agaasinka already diyaarsaday oo la socdaba ama ay waajib tahay in macalinka la rabo meesha uu marayo ay ku diyaarsan tahay scheme foga haddaan dugsi maanta kormeer ku tago dugsiyada gobolka Banaadir mid kamid ah oo aan u galo macalin xiisad dhigayo waxaan already ogahay ama aan haystaa Sanad Dugsiyeedkan after midtermka dambe January isbuuca koowaad ama isbuuca labaad casirka meesha uu marayo taasna macalinka ay u noqon doonto mid oo maamulka gobolka iyo agaasinkana loo accountability la sameyn karo la xisaabtami karo macalinka hadduu casirka ka gaabiyay iyo hadduu macalinka casirka dheeray even xitaa haday dhacdo in COVID-19 uu soo laabto ama waxyaabo crisis ay dhacaanna in lagu beesgareeyo markaas oo la sameeyo wax la yiraahdo in questionnaire la sameeyo oo baxs la sameeyo ama in la sameeyo waraysi guud oo lagu sameynayo ama xog in lagu baarayo dhammaan dugsiyada iyadoo la soo ogaanayo meesha ay u badan yihiin oo casharada buugaagta ay marayaan taasoo marka dambe laga qiyaas qaadanayo imtixaanka 12 markii la galayo in lagu beesgareeyo inta mawduuc inta cabsid ee baxday halka isbuuca ugu dambeeyo uu ku soo aadaysan dugsiyeedkan uu yahay May isbuuca ugu horeeyo oo revision ah sideedeedana uu bilaaban doono imtixaanka naqliga oo iskuulada 14 uu bilaaban doono imtixaanka fasalka 8aad ee Sanad Dugsiyeedkan 24 imtixaanka fasalka 12aad saas ayuu ku beesgareysan yahay waana qorshayaasha agaasinka uu damacsan yahay in Sanad Dugsiyeedkan uu hirgeliyo oo rabo in waxbarashada gobolka wax badan ay ka bedesho waa tahay fariinta iyo hambalyada u diraysiin bahda waxbarashada Sanad Dugsiyeedkan cusub muxuu yahay Sanad Dugsiyeedka runtii waxaan rabnaa inuu ka duwanaado Sanad Dugsiyeedadii hore sababtu waxay tahay waxbarashada markii la yiraahdo waa meelaha ugu adag oo runtii bahda waxbarashada gobolka Banaadirna dhammaan iskuulada runtii aad u dadaalayaan maamulada dugsiyada runtii agaasinka waxbarashadana si laab furan ay ula shaqeynayaan ayna diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan horumarka waxbarashada horena waxa u jiri jirtay in ardada ay dugsiga rabaan inay iska tagaan fasalka rabaan iska fadhiistaan imtixaankana dhowtii form 4 ka soo ku soo galaan ku dhacaan taasina agaasinka waxbarashada iyo dugsiyadiina ay iskula jaan qaadeen in arday walba oo bedel sameynaya ama rabo inuu fasal fadhiista qaab system u maro oo aysan jirin arday maanta inuu boodo iskuulka la tago fasalka la fadhiisan karo iyadoo iskuulada dhan la xisaabtamayo maamulada dugsiyadana ay diyaar u yihiin arrinkaas ay diyaar u yihiin agaasinka waxbarashada la shaqeeyaan Sanad Dugsiyeedkana waxyaabaha aan rabno inaan dhawaan rabno inaan shaaxino waxaa kamid ah scheme focus ama qorshaas sidoo kale waxaa kamid ah calendarka waxbarashada oo aan ugu talagalnay in aan ku beesgareyno sanadkan inaan maamulada dugsiyada la wadaagno calendarkaas oo wax badan ayagana ka saaciidi doona xiliyada ama waqtiyada casharada ay soconayso xiliyada oo fasaxa la soo galayo waxaasoo dhanna ay calendar ku diyaarsan yihiin dhawaanna aan rabno inaan gudbino ama aan rabno inaan la shargareyno dugsiyada sababtaa waxaa soo gala maalmo fasaxyaa jiro oo maalmaha ciidankaa jiro maalmaha waxaa jiro oo xoriyada oo dabaaldega la rabana in lagu beesgareeyo ama la raacana maalmahaas fasaxyada iyo waxyaabahaas ay ku dhisayihiin scheme fog aan diyaarinana qorshahana uu ku beesgareysan yahay taas agosto dugsiyada kooda furmay wax fasaxa ma jiro September wax fasaxa ayana ma jiro October waxaa soo galay firka 2 maalin oo fasaxa 12 October oo ah maalinta calanka iyo 19 October oo ah maalinta Rabiul Awwal ama Mawlidka soo galayso Novemberna waxaa soo galaysa hal maalin oo ah maalinta macalinka bisha Decemberna waa bil imtixaankii lagu galayo imtixaanaadkii fasalada dhexe la galayo ciidiya soo maalinta ciidanka booliska soo galayso oo 22 December ah maalinta dhalinyarada soo galayso eedana sidoo kale bisha May soo gali doonta taas
bishan kale iyada soo kala janaayana wax fasaxa ma jiro February-na maalinta ciidanka oo soo galaysa 22 oo ciidanka asluubka Marsna waxaa imaan doonta maalinta haweenka oo 8 March Abriilna sidoo kale 12 maalinta ciidanka xoogga dalka ah iyo Ramadaankii oo iyadana soo gali doonto bisha Marchna waa maalintii waa bilihii ishay oo bishii maalinta dhalinyarada ay soo gali doonto iyo bil imtixaanaad iyadana ay ciidul fidriga ah waxaas dhanna waxay ku diyaarsan yihiin kalandarka Sanad Dugsiyeedkan 2022